waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo oo aan u duceyno oo aan faatixad u marno ilaahay inuu jannadiisii iyo naxariistiisa siiyo 13 dhalinyaro oo SYL aasaastay asaasayaashii oo runtii u soo halgamay Soomaaliya inay xorriyad u keenaan aan ka bilaabo Cabduqaadir Sheekh Sakhaawadiin Maxamed Xirsi Nuur Sidi Yaasiin Xaaji Cusmaan حاجي محمد حسين عثمان جيد راجع ديره حاجي ديره طاهر حاجي عثمان دقويني علي حسن مصلح محمد فارح حلولي محمد علي نور حاجي محمد عبد الله حياسي هذو معلن عبد الله إيوه محمد عثمان باربي إلهي إنه نحريس جنة سيو كنتي وحنا هالكن وجود بالدقينا سنة جوردي تضواتني أفراد كسو ورقتي أساسكي ururkii dhalinyarada SYL halgamayaashii isu tagay 13 ahaa oo gartay Soomaaliya inay ka qaadaan heeryada gumaysiga iyagoo fahmay hal arin oo aan ka hadli doono waxa xaqiiqo ah oo la hubaa oo taariikhda na baraysa adduunka dal walba oo burbura iyo dal kasta oo badbaada waxa qayb ka ah dhalinyaradaasi marka qayb waxay ka ahaayeen curinta iyo dib u xoreynta ama xoreynta dalka Soomaaliyeed iyo midnimadiisaba labadaba iyagoo runtii ka duulayay saddex arrimood oo muhiim ah oo anagu inteena badan halkan jooga ayna fahamsaneen ilaa hadda waxay tahay bini aadanku marka uu halgan ku jiro ama uu dagaal ku jiro waa in uu wax u aaminsan yahay oo u dhimanayo askariga marka la tababarayo laguma tababaro kaliya inuu wax dilo waxa lagu tababaraa inuu u dhiman karo koos inuu wax aaminsan yahay oo u dhimanayo macnaheedu ay tahay dalkiisa inuu difaacayo wadanimo iyo dal jecel qofkaasi waxa laga yaabaa marka kaliya ma aha inuu dhinto kaliya marka hadda aan ka hadlayno oo aan leenahay mushaare waa inaan bixino qofkaas wadaniga ah oo la fahamsiiyay dalkan inuu leeyahay wuxuu diyaar u yahay inuu dhinto isagoo mushahar qaadan waxa intaas dheer marka la yiraahdo dalkan wuxuu u baahan yahay difaac in qof walba oo Soomaali ah uu soo istaago uu safka galo isagoo mutadawac ah oo runtii naftiisa huray levelkaas yay gaarsiiyeen shacabka Soomaaliyeed markaas joogay ilaa hadda annaga oo ka shaqeynaa hawshaas inaan dadka fahamsiino waxaan la dagaalayno shabaab inay yihiin inay nagu soo duuleen
inay cadow Soomaaliyeed yihiin inaysan doonayn dal Soomaaliyeed inuu jiro oo halkaan ay rabaan inay ka dhigtaan meel lagu dagaalo oo ciidamada shisheeye nagala joogaan oo maxaan ku raahdaa diyaarado loo soo diro oo lagu laayo dadka shacabkana ay ku baaba'aan sidaas darteed saddex arrimood iyo isbarbar dhigeen Israel Allah u naxariistee saddexda waxay tahay kee ku shaqeynaa oo mabda' noo noqda ma qabyaalad ma xagjirnimo diineed ileen waqtigaas xitaa waa jiray dad xagjir waa jireen tan saddexaad patriotism dal jecel iyo wadannimo saddexdaas markay isgarab dhigeen waxay ogaadeen qabiilku inuu yahay kala qaybiye qabiilku inuu yahay qarin duris inuu yahay qabiilku inuu yahay qof walba oo xun meel uu ku gabado waxay yiraahdeen marka waxa isticmaala mustacmarka waxa isticmaala gumaysiga oo ummadda Soomaaliyeed ku kala qaybiya sidaas darteed annagu qabiil uma baahnin maxaa yeelay hal qabiil oo Soomaali ah yaan lahay dadka waxay bareen marka wadannimo ah kulli ummadda Soomaaliyeed inay Soomaali yihiin oo aysan qabiil kala lahayn arinta xagjirnimada waxay ogaadeen diinta nafteeda in lagu kala qaybsan yahay waxa u soo baxday marka waxa kaliya oo Soomaali ee midnimo ugu keeni karaan inay tahay patriotism wadannimo dal jecel shaqo sahlan ma ah marka dad aan aqoon lahayn in la geliyo wadannimo haddaan la anahay dadka inaan gelino wadannimo annagoo aqoon leh annagoo maxaan ku raahdaa khibrado badan leh annagoo soo aragnay dhibaatooyinka qabyaaladda iyo qabiilka iyo xagjirnimada yaan la anahay dadkii inaan gelino war dalkiina jeclaada war qabiilka ka taga markaasay waxay garteen inay dadka orientation siiyaan oo xitaa iskoolada ay ugu tagaan ee caruurta baraan Soomaalnimo iyo midnimo iyo qarannimo way ku guuleysteen waxay keeneen gobonnimo Soomaali waxay noqotay wadamadii ugu horeeyay oo mustacmarka ka xorooba wadamadii Yurubiyaanka ahaa waxay noqotay wadamadii ugu horeeyay oo Afrika oo noqday dimuqraadiyad Israel kaliya ma ahayn halgan iyo movement kaliya ma ahayn wuxuu ahaa halgan dimuqraadiyad ah oo runtii ka horeeya Afrikada kale oo dadka loo deenayo ama dadku ay isku dooranayaan axsaabo oo qabiilka laga tagayo taasna waxay ku gaareen runtii marka aan sheego niyad wanaag oo hadda aan doonayno runtii dhalinyarada Soomaaliyeed oo hadda joogta inaan ka dhaadhicino hadda xaaladana haysata marka iyo sida aan wax uga baran karno dhalinyaradaas Allah u naxariistay 13 ah aqliga ay keeneen ummadan ay uga dhaadhiciyeen Soomaalinimo iyo wadannimo iyo dal jecel hadda loo baahan yahay saddexdaas arrimoodna hadda waan haysataa 74 sano kadib saddexdaas arrimood waan haysataa qabyaaladana haysataa oo 4.5 ku qaybsanaa waxaana haystaa xagjir oo arkaysaan maalin walba waxay sameynayaan qarax ay sameynayaan waxa noo haray maxay tahay marka ilaa annaga socialist money capitalist money waxa noo haray wax iyagu kuwa kale aysan lahayn oo ah wadannimo oo ah patriotism oo ah dal jecel kaliya noo haray maxaa yeelay waxaan ognahay 17 sano hadda la soo dhaaf oo dhibaatada Soomaaliya ku socotay wixii dhigay inay ahaayeen qabyaalad oo qof ku dhex dhuumanayo qabyaaladda mar walba waxa wata ama ku shaqeysta qofka xun qabiilkan wuxuu qariyaa qof kastoo xun waa qariyaa waa qarsada qofkaasna ujeedadiisu waxay tahay dan shakhsi ah dan guud kama shaqeeyo qofka qabiilista haduu yahay qabiilku uu isticmaalaa marka ugu dambaysa isaga ku dhamaataa saas darteed waxaad ogaataan qofka qabiilka isticmaala halaga fogaado waad ogtihiin hadduu qabiil macna leeyahay 17 sano waxaan noqon lahayn wadamada ugu qanisan adduunka yaa noqon lahayn war ilaahay idinku dhaariyay ma jira intuu qabiil isu tagay yiri hal wiil oo yar waxaan ka bixinayaa iskool ma aragteen intee qabiil isu fariisteen oo odaygoodii ka qabiil ku dhex fadhiyo oo yiri hal wiil yaan waxaan ka bixinayaa grade koowaad ilaa jaamacad ma aragteen ma jiro ma aragteen qabiil intuu isu tagay yiri maxaan ku yiraahdaa dad baan raashin inoo siinayna ama caafimaad siinayna ma jiro waxa laga yaabaa qof inuu ku siiyo marka qofkaasna wuxuu kugu siinayaa relationship qabiil ma ah waxaad ogaataan qabiilku waa waxyaabaha na burburinaya oo runtii cadowgeena noo loogaya
ay shabaab maanta dalkeena ugu jiraan oo dadkan amisom walaalaheena ay noola joogaan oo ay noogu dhex jiraan waa qabiil wax kale ma ah sidaas darteed inaan ka guurno oo aan u guurno walaalayaal Soomaalnimo inaan u guurno Soomaalnimo dhalinyaro waxaan idin leeyahay marka haddii 74 sano ka hor dhalinyaro idinka aqoon yar oo idinka resource yar oo maxaan ku raahdaa idinka siiyay maxaan ku raahdaa dhaqaale yar ay gaareen inay Soomaaliya isu keenaan oo ay mideeyaan waqooyi iyo koonfur war maxaa hadda idin yaala sugaysaan ma waxa idin sugaysaan kaaba qabiil ama nin ku qaraarta qabiil inuu maalin walba idinku kacsado annaga waan la tagay reebel hadaan nahay xilna lama siinin oo idin tiriyo markay ugu dambeysana ay tahay wax naftiisa aan dhaafin waxaan idin sheegayaa dhalinyaro fadhiga laga kaco waqtigii waa la joogaa annaga ugu horeyno oo dawladda idin fadhino oo rabno inaan idin empower gareyno inaan idin xoojino oo awoodiina idin sheegno oo aan gacan idinku siino wadankan inaa hanataan mustaqbalka ma ahee maantada aan joogno waxaa kaloo muhiim ah dawladdan anigu aan madaxweyne ka ahay iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan nala kala dhexgelin in aan noqono ul iyo diirkeed inaan noqono awoodiinu waa awoodeydana waa awoodiina waxyaabaha arkaysaan marka la isoo dhaweynayo marar badan waa ay oo markii ugu horeysay aan tagay meesha la yiraahdo Nairobi madaxweynaha Uhuru Kenyatta waxyaabaha uu arkay oo uu go'aan ku qaatay in diyaaradaha ka baxay halkan ay toos u aadaan Nairobi oo laga leexiyo wajeer waa taageeradiina iyo isku duubnaanshaheena iyo midnimadeena waxaa muuqda Soomaalnimadii inay soo noqotay haddaan qabiilnahay sharaf malihi cidna karaameynaysan ma jirto haddaan nahay xaq jir adduunka oo dhan waa naga soo horjeesanaya marka waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed dawladdan idinkaas kale hadday xun tahayna qabta hadday wanaagsan tahayna gacan u noqda oo u noqda laf dhabar u noqda waajibaad baana saaran idinkana waajibaad baan saaran annaga waajibaadkana saaran waxay tahay inaan idinkeena dawlad wanaag oo aan la tartanno dawladaha kale oo shisheeyna aan la tartanno waxaana saaran oo tahay magaaladan aragtaan oo burbursan 4 sano gudaheeda inaan ka soo saarno magaalada ugu nadiifsan magaalada ugu qurxoon inaan ka soo saarno waxaan naga go'an inaan cadaalad qof walba oo Soomaali ah uu helo si uu qabiilku uga fogaado inta badan qabiilku waxa loogu dhawaadaa maxaa yeelay dawladdii idinku aad laheedeen yaa laga yaabaa cadaalad darro inay ku sameeyso marka haddii annaga aan ka shaqeyno qof walba xuquuqdiisa inuu helo qabiil uma baahnidin waxaan ka shaqeynaynaa intaas oo dheer ammaanadiina inaan idin ilaalino oo dhaqaalaha aad dhiibtaan oo yar inaan si fiican idinku maamulno oo aan adeegii dawladda aan soo celino iskooladii aan soo celino maxaan ku iraahdaa caafimaadka aan soo celino jidadkii aan soo celino iyo waxa loo baahan yahay idinka waxaa idinka rabaa marka kow dawladdan in aad taageertaan 100% aad gacan siisaan oo maanta haddii la yiraahdo soo baxa halkaasaan qabanaynaa uusan qofna istaagin waxaa idinka rabaa inaad ammaanka nagala shaqaysaan oo qolada nabadiidka ah oo Soomaali u diiday horumarka iyo mustaqbalka wanaagsan inaan la qarin in la sheego xitaa hadduu walaalka yahay maxaa yeelay hadduu walaalka yahay asleedaha adigu ku dili maayo nin kale aad taqaano walaalka uu dili isna walaalkiis uu qarsado adigu ku dili dadkan xaq jirka ah Soomaali ma aha hadday Soomaali yihiin annaga siina cafis inay noo yimaadaan oo waxay u baahan yihiin aan siino oo ay dhismaha dalka nagala soo qayb galaan haddaysan Soomaali ahayna walaalayaal dalkooda ha aadaan dalkan islaamku dhan kama dhaxay adduunka dalkan Soomaaliya iskale cid iimaanaysan idinka oo ogolaanaya qofkaasna waa inuu noqdo qof akhlaaq iyo wanaag iyo horumarka qayb ka noqonayeen uu soo noqon qof idin qarxinaya oo idin maleegaya bambooyin oo maalin walba dadka leenaya ama hantida burburinaya walaalayaal annaga doorkeena waa cad yahay idinkana waxaa la idinka rabaa doorkeena inuu cadaado oo aad bixisaan walaalayaalo canshuurta waa ka bedelayna hadduu Ilaahay yiraahdo haddii baarlamaanku ii ogolaado waxaan rabnaa inaan u bixino qaran canshuurta xoogaa waxay u egtaa wax la is xoogaayo canshuurtu haddaydan bixin dawlad ma shaqayn karto waxyaabaha aad arkaysaan oo nalooga hormaray dawladahan aad arkaysaan oo maxaan ku raahdaa hore u maray waxay hore ugu mareen waxay tahay
shacabkooda yaa canshuurta bixiya